Bismillah, salaam Allah, soo dhawaada asxaabta qaaliga waa Xaydar. Aad baan ugu faraxsanahay dabcan in dadka badankiina ay ka faa'iidaysteen lacagihii isbuuca aan soo diray dabcan. 6 lacagood baan gaadaynay, half ka mid ah way dhaqaaqeen oo qaabkii aan u sheegnay bay u dhaqaaqeen dabcan. Jihadii aan u dirnayna way aadeen. Qaarkii kalena dabcan qaar waxaa jiray wax la dhaho iyagoo aan target ka gaarin soo laabtay oo sababtay soo laabteenna waxay ahayd in ay possible-kii ka laabteen dabcan oo ay sababtaas ay soo laabteen. Okay, waan sheegaynaa wax waliba insha Allah oo videoga waan lacag waliba waa isdul taagayaa qaabkay u dhaqantay waxay samaysay qaabka aan uga faa'iidaystay waxaas oo dhan. Masha Allah dadka qaar way ka faa'iidaysteen lacagtan oo kale NZD/USD oo aad u dhaqaaqday USD-dana Masha Allah. Waxaa yacni isbuucii hadda wuxuu ahaa isbuuc lacagaha badankood aan soo diray wada expanding ku jireen waa expanding with expanding baan dhihi karnaa. Structure aad u macaan qaab dhismeed leh haddaad eegtid qaab dhismeedka halkan iyo qaab dhismeedka halkan زائد wax cajiiba waaye dabcan in ay isleeyihiin camal waad u malaynaysaa dabcan taasna waxaa keenaya waxa weeye qaab dhismeedka iyo weliba maxaa la dhahaa xirfadan baa keenaysa in ay identical noqdaan ama ay mataqaanaa ay same noqdaan. Okay, haddaan guda galo waqtiga yar awgiis lacagta koowaad oo ah NZD/USD dabcan aan videogii falanqaynta dib ugu laabto يعني qaabkan u forecasting garaynay qaabkan lacagtan aan iri entry baan uga raadinaynaa jihadan entryga uga raadinahayn waxaas oo dhan videogan ku sharxay laakiin waxaan rabaa dib ugu laabto inaan dib ugu laabto dabcan lacag walibana aan dul istaago qaabkay u dhaqantay qaabkay mataqaanaa samaysay waxaas oo dhan insha Allah videogan baan insha Allah uga hadlaynaa fahmi karaysaa dabcan haddaan u gudbo waqtiga yar يعني فلقينت بقى يعني دقيقتين كسو كوب سمي يعني نوغو بدن أنا قد بقول لعقتها أوهوريسا waxa weeye kiwi USD هذا أسبوع مع NZD/USD يعني daily time frame كتان إنه حالة دي كتير توجدان بس حالة يعني إنه كتير حاجة واحد له you know فلقينا نسميه أو you know yearly analyze aan sameeyey dabcan taasoo ilaa hadda u socota wax la dhaho si saxan oo dabcan meesha aan u jihayay wada aadeen ogow structure-ku wuxuu saxmayaa markii yacni price action-ku ama waxaan leeyahay structure-ku yacni structure-kan isticmaalaysa wuxuu kuu saxmayaa afan markii aad maxaa la dhahaa aad uu ixtiraamo wax la dhaho price actionka waa maxay de movementiga marketka uu leeyahay markuu ixtiraamo trailing walba dabcan waa in uu ku ixtiraamaa kaba soo qaad haddii structurekan uu san ahaan lahayn structure saxan waxaa dhici lahayd structurekan hadda uu ku jiro descendingka iyo descending uu halka samaysanayo inay yacni mataqaanaa ay yacni uu waafaqi waayo kadibna all the way uu dhow soo aadi waayo ama in uu iska soo daadan lahaa structure-kan way soo jabsan lahaa soo daadan lahaa yani taas waxay noqon lahayd structure-ku uu khaldaya laakiin in waxaan uu shaqaynayso ama ay mataqaanaa uu yahay wax mataqaanaa ku dhisan cilmi ama structure ku dhisman uu yahay waxa kuu cadaynaysa waxa weeye qaabku uu ixtiraamayo uga laalaabanayo yani qaabku uga laalaabanayo qaabku u tegayo waxaas oo dhan wax cajaa'iba dabcan halkan waxa ka samaysa waxa la dhaho ascending with descending means waa iskan saleen waxaa waaye continuation suuqu inuu sii socdo aan sii wado videogan expanding ay ku jirto inkastoo ay halkan ka samaysa waxa la dhaho structure-kan aan geeyo targetka aan geynayaa waqtiga yar laga rajeynayo in inkastoo ay halkan ka samaysa waxa la dhaho structure-kan side-ka laga rajeynayo in retrace ku samayso kadibna ay all the way upkeeda usoo socdo waayo waxay soo dhaaftay waxa weeye the main structure-kii guud oo structure-kan guud ee halkan ku jira saad u jeedid structure-kan guud dabcan lacagtan waxay tagtay waxa weeye meel mini double support yani mini support waa dhihi karnaa ama mini double top
qaab correction ay ku jirtay waa laba taabashaa all the way way soo dhacday lacagta waxay samayn kartaa laba midkood ay samayn kartaa dabcan baas ku socota halkan inay correction qaab noocan ah ka samayso ay ku kala wareegayso jihada abka kusii aadayso waayo markaasoo kale waxaan dhihi karaynaa halkan structure-kan ay tixgelinaysaa trading-ka ka saarmay ay tixgelinaysaa ama inay inverse kusoo dhaqaaqdo dabcan maxaan nidhi meeshaan ka falanqeynaynay halkan ahayd dabcan meeshan ahayd iisan kuu dhiiban dabcan structure-kan waxaan ku sameeyey waxa loo update aan ku sameeyey xaggan uu ii saarnaa trading-ka dabcan labada taabasho waa halkan soo dhicid xagee marayay suuqu halkaasuu marayay xagee ka sugaynay ninth rollka maxaa dhacay haddii aan dib kugu celiyo waxaa dhacay halkan inuu ka sameeyo waxa la low momentum structure kadibna low momentum structure kale kadibna all the way la cunay ab loo cunay kadibna la soo cunay means halkan waxa waaye structure-kan waxaa ka sugaynay يعني هذا continuation ka qaadan lahayd downka means يعني waxaad sugi lahayd waxa weeye waayo suuqu wuxuu sameyn lahaa impulsive correction uu sameeyey haddana correctionkii 90 lagu soo tegay haddana correction kale maxaa sugaysaa halkan in يعني horsantary ku yaal in qaab correction ku tago kadibna aad structure markaa ka aragtid halkan structure yar ka aragtid kadibna all the way lacagta continuation ka soo qaad maxaa dhacay impulse baa lagu tegay all the way means lacagta waxaa la yidhi ma jirto lacag sell aadaysa ama lacagtaasi sell maba aadaysa la yidhi pass baa yani all the way lagu dhaafo okay haddana all the way sidiisaa loo soo laabtay okay markaas maba ku jirtidba okay waxaa kuu caddaanaysa halka markii la yimi maxaa la sameeyey maxaa ka dhacay meeshan okay halkan markii la sameeyey dabcan maxaa ka sugaysay halkan waxaa ka sugaysay halkan haddaad eegtid lower time frame-ka waxaa ku jira structure 15 minute time frame-ka structure baa ku jira qaab noocan oo kale ah ku caddaynaya in lacagtan kala wareegayso okay waxaad aragtay halkan inuu ka sameeyey suuqani waxa la dhaho structure-kan laba taabasho plus double bottom hoose oo qaab correction-ka kuu sheegay ku yimi okay waxaad aragtay flaggan inuu samaysmay sababta flagga uga qaadan waxay tahay structure-kan markaa ku sameeyey update structure-kan ma aanan joogin markuu samaysmayey monitorka dishiis yani maxaa la dhahaa waa ka maqnaa shashada so sababtaas maxaa dhacay waxaan ogaaday in halka markii la jebiyey aan soo imi all the way in la jebiyey kadibna structure-kii labaad baan ka qaatay markii la jebiyey okay sababtaa yani uga qaadan waxay tahay ma aanan joogin structure-ka markuu samaysmayey ma aanan joogin waan ka maqnaa maxaa la dhahaa chartiga sidoo kale waxay caddaatay halkan markii la jebiyey waxaa kuu caddaanaysa in lacagtani ay tahay lacag aan downba soo aadayn oo lacagtaasi ay tahay lacag aba way sii caddaatay okay halkan maxaa ka dhacay okay waxaan sugi wax la dhaho halkan ninth rule-kan baa wax lagu tigi wax la dhaho qaab correction okay all the way waa la soo dhacay xagee la yimi ninth rule-kii structure-kii baa la yimi maxaa la sameeyey deviation waxaa la sameeyey waxa weeye structure marka hore meeshan laga sameeyey hadaad eegtid structure-kan weyn structure-kii waa la sameeyey ninth rule-ka structure-kii waa waxa lagu yimi qaab correction ah haddaa halkan aragtid low time frame-ka correction baa ku jira means waa candles haddaad aragtid candle week haddaad aragtid means oo yani spike weyn aad aragtid means waa correction haddaa lower time frame okay xagee la yimi ninth rule-kii maxaa lagu yimi qaab correction okay haddana all the way abba loo baxay maxaa la sameeyey waxa loo another correction kale lagu imanayo waxa weeye double topkii uu hadda ninth rule-ka hadda tegey
maxaa meeshan kaaga samaysmay waxa kaaga samaysmay waxa weeye structure baa kaaga samaysmay okay jebinta structure kan baa ka qaadanaysaa maxaa dhacay jebinta structure kan qaatay all the way haddana continuation baa sii dhacay aad bay u qurux badnayd lacagtani lacag waxay ahayd sugid aad sugaysid dabcan mar walibana update ku samaynaysid eegaysid la soconaysid dabcan wayna dhaqaaqday ugu dambeyntii waxayna ku dhaqaaqday impulsive masha allah ilaa hadda way furan tahay lacagtan way furan tahay rajeynaya expanding ka inay ku soconayso ama training ka inay tegi doonto insha allah hadda waxay ordaysaa adigu yaraan 1.6 ama 1.7 something bay ordaysaa adiga 2% bay u dhowdahay masha allah targetka koowaad halkan waa head garaysay targetkii labaadna waa kan target saxan waa kaas masha allah aan u gudbo lacagta saddexaad wax waliba waad aragtay qaabka u dhaceen qaabka loo qaatay waxaas oo dhan waad aragtay masha allah aan u gudbo lacagta xigta haddii halkan correction ku timaado inay sii waa lacagtan USD lacagtan muddo yani ma ka trade gareyn oo ma aan yani fursad ka arag moodaa labada lacagood inay lacagtan isku structure ay sameynayeen in ay halkan hadday imbalance ku timaado inay cost correction ka sameyso ay sii dayso dabcan waxay tegaysaa ilaa 90 taas ka faa'iidayso leedahay ama haddii kale lacagtan waxay sameynaysaa hadday halkan correction ka bilowdo correction waaliya ka bilowda oo janjeer haddaad aragtidna means lacagtan ka taxadar oo structure baa laga yaabaa halkan inay ka sameyso kadib way ay ku laabato okay aan ku laabano maxaa dhacay meeshaan kuu sheegaya halkan waaye xaggan uu saarnaa waxa la dhaho trailinka yani abridaan ku sameeyey tankii dambe xaggani suuqa maraya maxaa dhacay in xogaa ab loo laabtay kadibna la sameeyey structurekan la sameeyey waadixa inkastoo markii dambe aan abrid ku sameeyey structurekan waadixa la sameeyey haddana all the way halkaa la jebiyey structurekan uu meeshan ka samaysmay jebinta structurekan laga qaatay flag meeshan uu ka dhacay haddana all the way uu ab siyaaday waayo halkaa markuu suuqa jebiyo waxaad dareemaysaa waxa weeye in means lacagtani ay jihabda haddaan wax yaro ku tuso sometimes markaad aragtid waxa la dhaho ascending qaab noocan oo kale u samaysmay yani ha ahaado sectionkiisu ha badnaadaan ama ha yaraadaan yani maximum waxaan dhihi karnaa iyo minimum maximum horta uu badan yahay wuxuu noqon karaa waxa la dhaho 4 section 5 section 3 section buu noqon karaa ascendingka the minimum section kan waa 2 section waaye minimum 2 section waaye laakiin 1 section hadda aragtid means waa continuationka u yeeshaan 1 section dabcan oo section waxaa laga wadaa yani qaab noocan oo kale laga wadaa laakiin maxaa la ascendingka iyo descendingku ha ahaadaan structure weyn ama ha ahaadaan structure yarba waxay leeyihiin wax loo more than 3 section way yeelan karaa okay lacagtan goormaad ogaanaysaa inay sell tahay waxaad ogaanaysaa waxa weeye markii halka soo jebiso means halka soo jebiso means high trend yani maxaa la dhahaa ascendingka uu dhamaaday ama up trendkii waxaa ku bilaabmay waxa weeye low trend yani down trade oo ah in lacagtan ay qaab noocaas ku soconayso means ay sameynayso waxa weeye waxa la dhaho retest ay sameynayso ilaa ay uu structure uu ka samayso dabcan haddaa halkan eegtid caadi ahaan haddaad eegtid suuqa haddaa logical codes oo kale suuqa waxaad aragtay ascending ku socdo dabcan qaab noocaas oo kale ah sometimes way isweydiinaysaa suuqan muxuu ab ugu socdaa wuxuu ab ugu socdaa waxa weeye wuxuu tixgelinayaa mar waliba retesting oo tixgelinaya mar waliba maxaa dhacay all the way up baa samaysmay down haddana up kale haddana retest waa lagu sameeyey waxna waa la ixtiraamay upkii horaa la ixtiraamay haddana downkii up downkii upkii horaa la ixtiraamay haddana all the way haddana waxaa la jebiyey upkii hore suuqani wuxuu jiha bedelaya ama ixtiraamkii uu yaraanayaa markii uu soo jebiyo waxa weeye downkan kadibna all the way uu down siyaado yani retestigani waxay ku saacidaysaa in meeshan aad trailing saaran kartid dabcan laakiin hadduu ahaan lahaa suuq wuxuu suuqaa suuq qaab noocaas oo kale samaynaya haddana samaynaya qaab noocan oo kale haddana saas samaynaya haddana saas samaynaya haddana saas means wax tixgelina meeshan ma ku arkaysid dabcan wax tixgelina ma ku arkaysid ama training ma ku arkaysid so retestigaas
waxay kuu sahlaysaa inaad saartid wax la dhaho trailing. marka haddaan usoo laabno lacagtan waa kaasa dabcan iyadana masha allah targetkii labaad bay gaartay. targetka koowaad halkan u ahaa, targetkii labaadna halkaas u ahaa. insha allah waxaan rajaynayaa targetka saddexaad inay gaari doonto ilaa halkaas adiga hadda 100 pip bay dhaqaaqday. waxaan leeyahay 90 pip bay dhaqaaqday cafwan, oo 3% all the way waxaan ka sugaynaa ilaa halkaa inay gaarto. all the way ilaa halkaa inay gaartaan sugaynaa insha allah. masha allah lacagda qodob badan bay ahayd, dadka qaarna ay ka faa'iidaysteen. dabcan patientina u baahnayd inaad sugtid, dul qaadatid, mar walibana aad jaartid, dul joogtid dabcan, oo aad ogaatid maxaa dhacay, maxaase dhicin, xagee yani mar walba inay kugu qondaysan tahay in aad ogtahay meeshaas suuqaad geli lahayd. sidoo kale waa wax aad iyo aad u qurux badan dabcan. halkan sidoo kale hadaad si waadaxa kugu muujiyo fiiri maxaa meesha ka dhacay. waxaa ka dhacay waxa la dhaho taabasho plus taabasho kale plus 3 taabasho. halkana 2 taabasho oo 3 taabasho waadixa plus double bottom hoose ay timi lacagtani. halkan aad bay solid u tahay, aad bay u qurux badan tahay lacagtani. expandingka ay ku jirta guudna waa kan dabcan ujeedaan filiya oo wax strategy oo kaa soo muujiyo. aan u gudbo lacagta xigta. lacagta xigta waa JBY lacagaada qurux badan dabcan. waxay dhowyi intrigaas aan ka qaadanay dabcan. waxay ahayd lacagaada qurux badan iyadana. dan overall directionkeeda guud iyo soo lacagtan anigoo daily time frame ka tagiya. daily time frame-ka waa kan. lacagtan correction ay ku socotaa. waxaa laga yaabaa in correctionka 90 ruulkiisa la buuxsado kadibna all the way la soo yaaco ilaa la imanayo trailinkan hoose trailinkan meeshan la imanayo trailinkan imanayo. haddii impossible ugu yimaadana sii deeriyo, haddii correction ugu yimaadana lacagtaasi kala wareegayso. okay iyadana insha allah ka faaid. maxaa kaloo dhici karaya lacagtan haddii 90 ruulkan xaggan ay si impossible ugu laabato. waxaa laga yaabaa waa inay correction ku laabato 90 ruulka yarkaa aan kuu sheegay, waa inay qaab correction ugu laabataa. haddii ay qaab momentum la ugu dadka head and shoulderka isticmaalaya meeshaas yani head and shoulder aad u qurux badan baa ka muuqda. means right shoulderkiiba hadda samaysmaya markaas. maxaan u yidhi haddii ay 90 ruulka structureka meesha ku jira impossible ku gaarto way sii daynaysaa. maxaan ku yidhi so waa rule maxaa dhici doona, maxaase dhici yani kara. so hadday qaab noocaas dhacdo qaabkaasu samaynaya, hadduu qaabkaas ay dhacdana qaabkaasu samaynaya. so maxaa hadda dad ugu laabano laabato impossible means waxa dhici karaya shay bedelato oo structure kale. okay maxaa dhacay waa kan meeshaan kuu sheegay xaggani ahayd dabcan. maxaa dhacay meeshaan kuu sheegay halkan ahayd 90 ruulka halkan way impossible lagu tegay correction kale all the way waa la CB. hadda halka geli lahayd oo kale means mar waliba way ku dili lahayd lacagtani oo down. mar waliba down ay ahaan lahayd means mar waliba way ku dili lahayd. okay maxaa dhacay impossible lagu tegay all the way abaa la siiyay. laakiin lacagtan aniga structure aad u qurux badan aan ka sugay, waayo waa ujeedaa waxay gashay yani wax la dhaho maxaan lahaa correction waa leeyahay. haddana aan structurekan ay kula laabanayso dabcan. halkaa markay maraysay forecastingkii ugu dambeeya ku sameeya wuxuu ahaa inay halkan timaado dabcan, kadibna bartaas laga buy gareeyo dabcan. ma aysan samayn oo trailing kadib ku laabatay dabcan. even halkan waxay ka samaysaa dhigi karnaa waxa la dhaho mini double top double bottom hoose. laakiin waxaa laga yaabaa inay hadda soo dhacda laga yaabaa oo halkan timaado kadib halkaas ay retest ama double bottom hoose ka samayso si structurekan hadda halka ku jirto ay u buuxsato dabcan. macquul iyadana lacagtaas wax entry ma aysan bixin oo weliba meeshii yani dhaqaaq aad u qurux badan ma aysan samayn dabcan. aan u gudbo lacagta lacagtan waxaa u badinayaa mar inay loo sii gelisay oo ay rajaynayaa inay halkan timaado kadibna bartaas laga baaygareeyo targetka koowaad. overall targetka badan xaggaas noqonaya insha allah. iyadana lacagtan saad bay gelisay inkastoo hadda ay samayso wax loo qaab structure waxay ku timi laga yaabo inay sii deyso, waayo halka wax ka samayso loo waxaan dhihi karaynaa 2 taabasho waa hadda ay samaysay. tagno qaabkaas anoo la samayn karaysaa kadibna all the way way sii laaban karaysaa.
sidoo kale correction way ku socon karaysaayo waxay gaari karaysaa ilaa halkan markaasoo kale structure-kana kale ay samayn doontaa oo expanding-ka oo hadhow jeeda halkaa lagu celinaya dabcan watana iyadana xaggana ka qaatay dabcan iyadana xaggana ka qaatay maxaa dhacay all the way in ay toos usoo laabatay dabcan kadibna tim waxa weye trailankii ixtiraamtay meeshaan awalka hore globalka noo ahayd kadibna all the way up u laabatay maxay samaysay hadda maanan gelin maanta xitaa waa ujeeday yani markii structure-kan jabisay waayo structure-kan waa ujeeda halkan wax double bottom hoose lagama samayn haddii aad ujeedid iyadana lacag aad u qurux badan bay ahayd insha allah laga isku future inay lacagtani yeelan doonto wax loo jiho aad u qurux badan kadibna ay sii dayn doonto dabcan anu gudbo lacagta xigta iyadana lacag aad u qurux badan weeye اسبوعي دويدني وسوقيني اسبوعي كويس طبعا هذه كوركشن كوركشن جيتمية او قام نوعاas oo kala waatana xaggan aan ka qaatay laba taabasho plus double topkaas soo jebintii waa qaatay laakiin pre-given ay igu saartay oo igu soo laabatay sababta keentana waxa weeye halkan retrace ku samaysay retrace ay ku samaysay sometimes waxaa arkaysaa wax la dhaho sometimes dadka order ku qaata halkan waxaa ujeeda wax la dhaho order dadka ku qaato oo kale halkan waxaad uga jeedaa wax la dhaho in halkan ay samayso wax la dhaho suuqani uu sameeyey laba taabasho correction ku sameeyey so dadka qaarkood waxaa dhacda dadna jabintay ka qaataan trailinka dadna waxay ka qaataan wax la dhaho order bay ku qaataan oo retestiga dambe ay qaataan dabcan maxaa dhacay suuqani in uu all the way up iskaga jabiyo oo aan usan retest ku sameyn wax la dhaho jabintii ama lowgii dambe dabcan kadibna all the way sii baxo maxaa dhimanaysaa in future in uu toos ugu soo laabto the intrigii dadka order ku sii yaalin kadibna all the way lagu sii daro so maxaa meeshan ka dhacday qaabkaasoo kale ka dhacday hadda halkaa tuso maxaa dhacay all the way waa la dhaqaaqay ilaa ugu yaraan waxaa la dhaqaaqay adiga 100 pip baa la orday 110 pip kadibna all the way waa la yimi waxgee la yimi meesha dadku ay dhigteen wax la dhaho oo markii ugu horreysay dhigteen wax la dhaho orderka kadibna all the way si imbars baa loo dhaqaaqay gelatay training iyadana insha allah waan ka hadli doonaa dabcan qaabkaas insha allah oo zoom baan qaban doonaa insha allah ama ay tahay habeen dambe haddii noqotona insha allah adigu anaa yani war information kaynu soo siin doona dabcan insha allah waxay u badan tahay inaan habeen dambe ka dhigi doono zoomka oo aan kaga hadli doono wax la dhaho intriyada iyo weliba qaababka dadku qaataan insha allah aan u gudbo lacagta xigta iyadana waxaan ka sugaya update-kan inay samayso wax la dhaho laba taabashay samaysay plus double bottom hoose dad halka egtid waxaa laga sugaya waxa weeye inay soo dhacdo insha allah ay halkan timaado insha allah structure-ka unbay ku dul wareegaysaa waxa ay samaynayso ma jirto dabcan ana gudbo lacagta xigta halkan samayso wax la dhaho layirikaad iyadana lacag aad u qurux badan steepkii aan sheegnay qaab noocaas ka samaysay all the way si automatic loo soo jeediyo waadixa lacag aad iyo aad u qurux badan bay ahayd dabcan way soo dhacday waxaa laga sugayay lacagtan in continuation aan ka suga lacagtan okay lacagtan markuu suuqa isniintii furantay dabcan halkan waxaa ka dhacay candle engulfina ka dhacay all the way up baa loo sii jebiyey ilaa la tegay retracekii trainlineka kadibna all the way waa la soo dhacay waa la laabtay maxaa meeshan ka dhacay correctionkan ku dhacay maanta waa ujeeday hadii shalay maanta waa u badinayna samaysmay waana hubi 100% newskii maanta saameeya u badinaya newskii kasoo baxayay AUD-da kasoo baxaya u badinaya news kadib maxaa dhacay kaad miyuu kasoo baxaya kaad buu kasoo baxaya laakiin tankii ma waxay tabkan 9kii galabnoomi ah markuu dhaqaaqan dhacay sax bas bay ku dhaqaaqday dabcan lacagaha kale qaabka u dhaqaaqeen xagay tagtayna introlkii waayo qaabkan correctionkan u sheegay dabcan sidoo kale hadda degtid maxaa la forward time frame-ka sidoo kale candle-dii baa ka arkaysaa kan u jeedaa dabcan
iyadana lacag aad u qurux badan qaab halkan correction inay sameyso iyadana ay dabcan soo dhacda laga yaabaa in future aad baad u mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah dabcan lacago aad u qurux badan isbuucii haddana dhaafay masha Allah aad ka faa'iidaysteen baan rajeynayaa dabcan habeen dambe insha Allah yani aniga soo yani soo inform garayn doona insha Allah in aan mataqaanaa aan samayn doono waxa la dhaho zoom iyo in kale aan ka hadli doono intriyadii waxaas insha Allah iyo weliba suuqa aan dhexgeli doono lacagaha qaar aan yani aan dhexgeli doono dabcan su'aalo live aan jiri doona insha Allah aad baad u mahadsantihiin asxaabta qaaliga waxaan rajeynayaa farxad iyo khayr insha Allah waa inoo iyo videoga xiga insha Allah